hoos loogu sheegi tahriibku waa mid ka mid ah aafooyinka ugu halista badan ee ay wajahayaan dhalinyarada qaaradda Afrika siiba kuwa Soomaalida dilbe lagu hayaa xasaasiyad baa la dhameysay injir baa saan loo cunto dhibaatada wallahi ilaahay baan arkay siibada la hoolni waayay ilfaha ummadii u qaaday dhibtaay kiciisayunka mid weeyaan sii huraysaa waxaan ku dhibaataysanay Liibiya nin cadawga gacantayga waa soo Liibiyana lacag biga raawo lacag $8,000 abay oo yeedsana ma hayaan marka walaal waxaan dhamaan ummadda muslimiinta ka baraya inay walaal meesha saan uga saari kartaan oo saataan ma weeyaan taribtu wuxuu agardama weeye haddana halisiyo dhibaato dadkii kama hawl yaraysto والله waxaan kuna ay ku joognaa 5 gabdhood oo wallahi meesha ku dhibaataysan xataa gabadhnimadooda laga ciyaaro baan nahay waxaan leenana soo caaw miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegi runtii aan markii musabixi Cabdilla Doornay baan dalkayga way ka soo baxay carruurnimo iyo dhalinyarnimo ay soo kaxaysay runtii wax dalkayga way iga maqnaa ma jirin ka waayay jirin miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegi miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubala miyaan dhalinyaro helaynin miyaan hoos loogu sheegi miyaydan wararka haynin miyaan isagoo hubala miyaan dhalinyaro helaynin